السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا خالقة ميل والبوءات كغا سوغنتهين دافها عالمك وحا إذن ليهي كسو دوادا جانال كيغا إمراس maanta waxaan ka hadli doonaa xorriyaddii Soomaaliya ay soo bilaabatay 1960kii qaybtii shalay aan soo qaadanay maahee qaybteedii xigtay oo aan kaga hadlaynay xorriyaddii Soomaaliya ilaa iminkan aan taagannahay anagoona u soo qaadan doonaa qayb dad badan oo su'aalo isoo weydiiyey ayaa waxa ay sheegeen in qoraalkii shalay aan ka hadlayay ee ahaa xorriyaddii Soomaaliya laga soo bilaabo 1960kii oo madaxweynihii ugu horeeyay uu yahay aadan cadde aniga hadalkii ku lifaaqay kula wareegay macnaha aadan cadde waxaa tartamaya cabdirashiid markaas ayaa waxaa ku guuleystay aadan cadde sidaas inaad ula socotaan ayaan jeclahay. barnaamijka qaybtiisa labaad waxaan ku bilaabayaa markii cabdirashiid cali sharmaake la dilay 1969kii 15 Oktoobar 1969kii 21 Oktoobar inqilaabkii loo bixiyey inqilaabkii aan dhiiga ku daadan ayaa ka dhacay Soomaaliya waxaana sidaasi xukunka ku qabsaday Jenaraal Maxamed Siyaad Barre. Oktoobar 1972 waxaa si rasmi ah loo qoray afka Soomaaliga oo wixii xilligaasi ka horeeyay aan qornayn balse Soomaalidu weligeed ku hadli jireen. Janaayo 23 1975 culamo Soomaaliyeed ayaa ka dhiidhiyeen sharci ay soo rogtay xukuumaddii Siyaad Barre. sharcigaasi oo ka hor imaanayay Qur'aanka xukunka Allah maadaama ay dadka Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslim sunni ah u cuntami weyday xukunkaas ay culimadu gadoodeen waxaana lagu jawaabay in 10 culimadii ka mid ah lagu xukumay dil waxaana culimadaasi Muqdisho lagu toogtay 23 bishii koowaad 1975 Abriil 9keedii 1978 waxaa dhicisoobay inqilaabkii lala maaganaa in lagu rido xukuumaddii Siyaad Barre waxaana la toogtay 17 ka mid ahaa raggii inqilaabka lagu tuhmay oo uu ku jiray Korneel Maxamed Sheekh Cusmaan oo ahaa hogaaminayay inqilaabkii xilligaasi ayuu Cabdullaahi Yuusuf ka baxsaday Soomaaliya maadaama uu ka mid ahaa raggii ku jiray fulintii inqilaabkaas. inqilaabku wuxuu ku qorsheysnaa inuu dhaco Abriil 12keedii 1978 laakiin wuxuu ka soo hormaray oo wuxuu dhacay taariikhdu markay ahayd 9 Abriil 1978 waana uu dhicisoobay. Sebtembar 1978 Korneel Cabdullaahi Yuusuf ayaa aasaasay mucaaradkii ugu horeeyay ee taariikhda dalka Soomaaliya waana jabhaddii SSF taas oo bishii Oktoobar 1981 isu bedeshay SSDF. asxaabtayda khaaliga meel walbo daafaha caalamka kaga sugan tihiin waxaa halkaasi ku soo koobaya qaybtii labaad ee taxanaha inoo ahayd ee xorriyaddii Soomaaliya. tan iyo intaan ku kulmi doono mar kale waxaa idin leeyahay sidaa iyo nabaddiino.